وإنان مذون اسموجنا wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya ayaa sheegaya in wadahadaladii ka socday villa Soomaaliya ay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan iyo ismariwaa siyaasadeed. kolonyada Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe oo niyad jabsan ayaa hadda waxay u sii socdaan xerada Xalane iyagoo halkaasii ay ugu socdaan in kulamo ay halkaasii ku qabsadaan ama wada tashiyo kadib markii oo soo fashilmay kulankii u dhaxeeyay golaha mustaqbalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday in lagala hadlo arrimaha doorashooyinka maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug sida xogaha ay helayso wakaaladda wararka Kilwa Media ay sheegayaanba. haddaba wixii markaasi dheeraad oo ku soo gudboonaada kala soco wakaaladda wararka Kilwa Media.